السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحن جعلهاي قصة سو قاردي إن أن مانتين لو ذاقو قصة وحا سو تبيي نين بروفيسورة واللي يراهدو الدكتور عبد الرزاق محمود الزهراني براء علمي قبل الشدة كردقة جامعة ملك إمامنا شيخاسي وحا وكقري قصة جورنالك اللي يراهدو الجزيرة عدد كيسي 13,778 oo ku taariikhaysna 25 bishii Rabiic Thani 1431 hijriyada walaalayaal dhacdadan waxay ka dhacday magaalada Amsterdam ee dalka Holland waxa uu sheekhu leeyahay waxa jiray nin daaciya oo madax ka ahaa markas amba xarun islaamiya oo ku taala magaalada Amsterdam imaamna ka ahaa masjidkeeda ninkaasi waxa uu ahaa nin dadaal weyn ku bixiya sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala sababtiisa ugu soo hanuunin lahaa dad badan oo marka diinta islaamka aan fahansanayn amba aan wali maqal dacwadii islaamka maalin kasta waxa bixi jiray isaga iyo inaan uu sheekhaasi dhalay oo da'diisa uu ku sheegay 12 sano in uu jiro waxa ay qaybin jireen manshuur amba kitaab aad u yar oo cinwaan looga dhigay at-tariiqu ila al-janna wadadii jannada loo marayay kitaabkaasi waxa uu ka hadlayaa islaamka waxa uu barayaa dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa ay markaa wadooyinka ku siin jireen oo ku gudoonsiin jireen iyaga oo waji furnaan iyo farxad ku qaabilaya dadka ajaanibta ah ee gaalada ah ayay markaa siin jireen maalmaha kamida ayaa sidii caadada u ahayd inankii waxa uu isu soo diyaariyay yaraa inuu aabihii u raaco sidii ay u qaybin lahaayeen kitaabkii ay maalin kastaba qaybin jireen laakiin maalinta jawigu aad buu u xumaa roob baada'ayay waxa jiray qabow aad u fara badan aabihii ayuu inankii weydiiyay ku yiri miyaanad baxayn aabe waqtigii waa la gaaray wuxuu ugu jawaabay aabihii maya maanta jawiga ayaa aad u xun roob baada'aya maanta waynu iska joogaynaa laakiin inankii yaraa arintaasi way u cuntami weyday wuxuu yiri aabe ka waran maanta qof badbaado u baahnaa oo naar aynu ka badbaadin lahayn haddii roobka aynu ka baaqanay oo aynu ku joognay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naar ku galiyo ka waran wuxuu yiri aabe fasaxadaba aniga ayaa tagaya oo safarka galaya oo u babac dhigaya jawiga iyo qabowga faraha badan aabihii markii uu in badan fikirayay oo uu in badan ka fiirsaday waxa uu go'aansaday inankii inuu fasaxo wuu fasaxay inankii ayaa markaa waxa uu sii qaatay marihii qabowga loogu talagalay dalaayadii uu markaa roobka isaga celinayay iyo agabkii kale ee uu u baahnaa wuxuu qaaday kitaabkii yaraa ee uu qaybin jiray waxa uu siiyay dad kutubtii uu qaybiyay oo uu kula kulmay wadooyinkii xaafadaha qaar buu ku garaacay markii dambe ayuu inankii wuxuu yiri waxaan garaacay gurigii in badan markaan garaacaya la iga furi waayay waan yaabay waxa igu celinaya gurigan garaacidii baan sii waday markasta oo aan isiraahdo ka tag guriga oo ka bax arintaas way cuntami weydaa markii aan in badan ku celcelinayay ayaa waxa iga furtay qof dumara oo waayeela oo guriga gudihiisa ku jirtay dabadeedna waxa aan ku yiri Ilaahay wuu ku jecel yahay Ilaahayna wuu isoo ka diray si noloshaadu ay isu bedesho oo khayr iyo wanaag aad u heshid waxaan ku sidaa kitaabkan ku baraya Ilaahay qoftii dumar ahayd kitaabkii bay ka gudoontay inankiina sidii buu ku soo noqday sheekhi wuxuu yiri wiigii ku xigay maalintii jimcaha ayaa markii khudbadii iyo muxaadaradii aanu jeedinaynay ay dhamaatay waxa dadkii jamaahiirta ahaa dhageysanayay darsiga ka dhex istaagtay qof dumar oo waayeela waxay tiri waxa aan halkan u imi jimcihii hore maan ahayn muslim kumana fikirin in aan muslim noqdo laakiin maanta halkan waxaan idinku imi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu ii soo diray malag yaro ee aad u wanaagsan oo iga badbaadiyay waxay tiri maalinta xaaladaydu aad bay u xumayd bil ka hor waxa geeriyooday ninkaygii oo in badan oo nolosha aan ku tiirsanaa
cid kale oo aan nolosha ku tiirsado amba nolosha wax igala qabatana maan haysan arrintaas iyo dhibaatadaasi markay ila kulantay waxaan go'aansaday in aan nolosha isdhaafiyo xadhig ayaan ku soo xidhay xagga sare ee guriga kursina waan dhigtay si aan isu dilo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inankaas uu ii soo diray albaabkii baa la garaacay waan sugay si qofkaasi intuu tegayo laakiin wuu tegi waayey dabadeedna naftayda ayaa waxay igu tidhi yara sug oo intaad degtid horta bal qofkaas soo eeg kadibna markaa ku soo noqo halkaaganoo nafta iska jar inankii markii aan albaabkii ka furay waxaan arkay ilmaha yar ee farxadda iyo wanaagga wejigiisa ka muuqda iyo qosolka uu samaynayo aad wax la yaabaysay uu yahay dabadeedna waxa aan go'aansaday fariinta uu siiyay iyo ereyga uu yiri ilaahay wuu ku jecel yahay in aan markaa niyadaydi ay saameyn ku samaysay kitaabka uu sidana aan akhriyo arintii baan akhriyay maanta alxamdulillah waaniga waxaan ku qalcay islaam inaan noqdo kuna soo islaamay sheekhi ayaa markaa minbarkii intuu ka soo degay inankiisiyo safka hore fadhiya mucaanaqo iyo markaa inuu laabta geliyo sameeyey kuna dul ooyey oo yidhi aabbo maanta aad baan kuugu faanayaa maanta waan ku faraxsanahay inaan aabbaha ahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sababtaada iyo adkaysigaagii iyo dadaalkaagii wuxuu ku soo badbaadiyey qofkaa dumara oo waayeelka ah oo naargeedii usii ahayd walaalayaal miyaanay qisadaasi ina dareensiinayn gaabiska aynu kaga jirno dacwada diin faafinta in badan oo gaala ah amba lunsan oo aaggeena lagu arkayo haddii aynu fariin yar gaadhsiino haddii aynu islaamka wanaagiisa u tilmaano haddii aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu naxariisto u tilmaano dambi dhaaf u sameeyo u tilmaano dadkaasi walaalayaal waxa laga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sababteena in uu ku soo badbaadiyo xasuusta xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam la in yahdi allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nicam علي بن أبي طالب أي النبي كلها إلهي إنه قف قرك كسو هنونيو أو سببتي سببت هذا وقفكاس كسو هنونو وحكاجا ونكسنت هيجيل عس إيو مركا وحي دتكو أي كفانان والله ليال إلهي سبحانه وتعالى دعودي سأينو جهدي قلنو دلال أينو قلنو إلهي سبحانه وتعالى هينو هذا يكسدو إن أينو نقرنو دد خيرك يونا قفافية وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه